kulanka ugu xiisaha iyo xamaasada badan horyaalka Somali Premier League ayaa la iclaamiyay waqtiga iyo garoonka lagu ciyaari doono, taasoo ay ka warsugayeen dhammaan shaqada kubadda cagta Soomaaliya. kulankan miisaankiisii inuusan ahayn mid ka maran xidiga iyo xiise la sheego ayaa noqday astaan weyn oo tusaaleynaysa sida dhammaan taageerayaasha kubadda cagta Soomaaliya ay ugu warsugayeen ciyaarta play-off-ka ama kala baxa ah ee lagu go'aamin doono kooxda horyaalka Soomaaliya qaadi karta. haddaba si aan kuula wadaagno xaqiiqooyin iyo sababta waqtigaasi loogu aadiyay ciyaarta u dhaxaysa Horseed iyo MCC, like saar muuqaalkan una share garee asxaabtaada kale ee Facebook si aan u helno saaxiibo u wanaagsan sida adigoo kale. waad ku mahadsan tahay taageeradaada iyo la jaanqaadkaaga. kooxaha Horseed iyo MCC oo lagu tilmaami karo kooxaha ugu awoodda badan waqti xaadirkan horyaalka Soomaaliya ayaa isha ku wada haya hanashada horyaalka fasal ciyaareedkan, iyadoo mid walba ka mid ah labada kooxood ay ku qalabeysan tahay xidiga xirfadlayaal oo aad loo jecel yahay kubaddooda. kulanka kala baxa ah waxaa la ciyaari doonaa iyadoo MCC ay ogtahay in fasal ciyaareedkii tagay ku guuleysato horyaalka sanadan ay u baahan tahay inay difaacato, halka Horseed ay muddo sanadaha horyaalkan kor u qaadeen. dheesha xiisaha leh ee waqtigeeda iyo garoonkeedaba la shaaciyay waxaa guusha qaadan doonta kooxdii la timaada xakameynta kulanka miisaan dheelitiran oo weerar iyo difaac ah, waxaana asal u ahaan doonta in la kala qaato dhibcaha cidda uu nasiibku u dhoola cadeeyo. qaybtii labaad ee horyaalka Somali Premier League waxaa lagu ciyaarayay garoonka bilicda sare leh Stadium Muqdisho, kaasi oo ay taageerayaasha xiiseeya kubadda cagta Soomaaliya ay u arkayeen in tuulada ciyaaraha ay tahay goob ku wanaagsan ciyaaraha laga daawado. qof walbana waxa uu si sahal ah ku soo gaarayay garoonka sabab la xiriirta wadooyinka loo maro garoonka Stadium Muqdisho oo ka sahlan garoomada kale ee horyaalka Soomaaliya lagu ciyaariyay kol hore. hal dhib ayaa si jira oo la xiriira ammaanka garoonka oo aan kala jeedo lama kala xakameyn karo xidigaha iyo taageerayaasha. garoonka ay taageerayaashu ku soo dhex ordaan markay ciyaartu dhamaato, taasina waxa ay noqotay burburka rajadii laga qabay in garoonka Stadium Muqdisho lagu ciyaaro kulanka play-off-ka ama kala baxa ah, iyadoo ugu dambeyn loo bedelay ligada Engineer Yariso X-Conis degmada Cabdicasiis ee gobolka Banaadir. hay-adaha amniga, wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha, xiriirka kubadda cagta Soomaaliya iyo maamulka gobolka Banaadir dhinacyadiisa kala duwan ayaa go'aamiyay dheesha play-off-ka ama kala baxa la ciyaari doono isbuuca soo socda. go'aanka la isla gaaray waxa uu noqday in Isniinta oo ah 2 Agoosto ee sanadan la ciyaari doono kulanka, waxaana dheesha ay ka dhacaysaa gegada Engineer Yariso X-Conis degmada Cabdicasiis ee gobolka Banaadir. yeelkeeda labada kooxood oo leh taageerayaal aad u fara badan ayaa fooda isku dari doona Isniinta garoonka weyn ee Conis Stadium, kaasi oo ay soo buux dhaafin doonaan taageerayaasha labada kooxood iyo korjoogto kale oo goobjoog u noqon doona ciyaarta weyn ee lagu go'aamin doono horyaalka Somali Premier League. waynu arki doonaa waxa ka dhaca garoonkaas iyo sida ay dheeshu noqoto. adiga ahaan kooxdii ayaad u rajeynaysaa in horyaalka Somali Premier League ay sanadan ku guuleysato. goolka ugu horeeyasa xidigee ayaa dhalin doona sida ay filashadaadu tahay. ilaa dhamaadka haddii aad nala joogtay waxaan ku xasuusinaynaa inay muhiim inoo tahay inaad muuqaalkan like saarto si saaxiibo badan ay u ogaadaan kulanka waqtiga uu dhacayo iyo garoonka uu ka dhici doono. una share garee asxaabtaada kale ee Facebook si aan u helno saaxiibo wanaagsan sida adiga oo kale. ku mahadsan tahay taageeradaada iyo la jaanqaadkaaga.